dhammaan dhalinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan uga habaleeynaa 15 May maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed khaasatan SYL ururkii nabadda inagu soo dabaale gudaha Soomaaliga geeyigeena markaan joogno waxa la sheegaa dhalinteena 75% inay yihiin dhalin yani ummadaha ku nool 25 soo harta waxa lahaa 75% yani waxa ay sameyn karaan hadii ay isku tagaan يعني نبضي دب أسوء عليان إن تقانا سميان دب وشيسين لحدقان سيدو كلا وحي سمي كران أما يعني الدور مقضى كقاضن كران وقان كتلك. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو محمد عبد العروش waxaan doonayaa inaan in yar ka iraahdo dhalinyarada Soomaaliyeed. Dhalinyarada Soomaaliyeed waa lambarka ugu badan ama tirada ugu badan ee ku nool dalka. waxaana lagu qiyaasaa inay yihiin 75%. haddaba ayadoo tiro intaas le'eg ay dhalinyaradu ka yihiin dadka guud ahaan ku nool dalka maxay ka qaban karaan ama aysan ka qabteen dalka. waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed hadday isku tagaan awoodooda iyo cilmigooda iyo aqligooda isku geeyaan inay wax badan ka bedeli karaan dalka sida uu yahay oo ay uga bedeli karaan muuqaal ahaan oo ay uga bedeli karaan horumar ahaan oo ay uga bedeli karaan nabad ahaan. laakiin dhalinyaradu maanta ma u soo jeedaa oo ma tahay dad u soo jeedo u diyaarsan inay intaas ka bedelaan. waxaa la isdhihi karaa in badan ee dhalinyarada Soomaaliyeed way jiraan kuwa jecel inuu dalkooda horumaro, kuwa wadaniyiin, kuwa doonaya inuu dalkooda ku biiro, kuwa wadamada hormaray ee barwaaqo sooranka la yiraahdo jecel dalkooda wax ku bartay ku barbaaray dib iyo dhibaatana ugu soo samray haddana jooga walina jecel inay ku noolaadaan. sidoo kale waxa dhici karta inay jiraan kuwa aan waxba ogeyn ama qalbada laga xaday ee doonaya inay ama tahriibaan ama ay dalka ka tagaan. waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaqayaa maalin caawa oo ay tahay 15 May xilliga la aasaasay ururka SYL inay isku yimaadaan aqliga iyo cilmiga isku darsadaan dalkooda sidii u dhisan lahaayeen ugana mid dhigi lahaayeen wadamada hormaray inay u diyaar garoobaan. insha Allah waxaan rajayn doonaa inay dhalinyarada Soomaaliyeed noqon doonaan kuwa ka soo dhalaala doorkooda dalkoodana ka qayb qaata sidii dhibaatada looga saari lahaa. bismillaah magacaygu waa Faadumo Aadan Cabdullaahi kana tirsan dhalinyarada ku nool Soomaaliya gaar ahaan gobolka Banaadir. dhalinyaradu hadda ka warqabto horta in horumarka ay abniga horta way ka shaqeeyaan laakiin wali waxa jirta gaab yar jira. gaabka sarka oo jin waxa loogu bixi karaa dawlad wanaag in la sameeyo kulamo ka turjumaya dawlad wanaaga in la sameeyo wacyigelin fara badan oo lagu baahinayo dawlad wanaaga ee dalka ka jira. dhalinyaradu waa ognahay boqolkiiba 75 ayaga lagu tilmaamay population ugu badan ayaga waaye haddana si ay tahay isku duubni ku jirto. dhalinyarada nabad iyo horumarka waxay ugu qayb qaadan kartaa midnimada dhalinyarada inay mudoobaan dhalinyarada soo. bismillaah haddii aan ku bilaabo magacaygu waa Handa Abdifatax Muuse. maanta waxaan jeclahay inaan ka hadlo doorka ay ku leeyihiin nabadda dhalinyarada Soomaaliyeed. dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa lagu eedeeyaa marar badan in ay ka gaabeen doorkii ay ku lahaayeen ummadda Soomaaliyeed. inkastoo ay iiga u badan yihiin haddana waxaa markasta dhaliish ugu badan ay qaataan waxayna ku qaataan burburka intuu jiray dadkii dhashay ayaa u badan dhalinyarada Soomaaliyeed. dawlad wanaagii dawladnimadii intaba ma aysan arkin. marka waxay u baahnayeen in tayno badan la siiyo aasaaska laga soo dhiso basic ahaan loo sameeyo. haddana manaahijta ay wax ku bartaanna ma ahan manaahij ka hadlayso waxbarashada iyo in ay qofkan oo wadani noqdo. waayo dalka wuu burburay dal hadduu burburno waxaa lagu yaqaanaa manaahijta kuwa burburayso. manaahijta haddii burburtan dhalinyaro ma jirayso. dhalinyaradii waayo jirkii soo kacayay waxaa aasaas u ah oo soo bixinaya oo basic u ah manaahijta ka jiraan wadanka. manaahijta wadanka ka jiraan haddii ay hagaagsanaato dhalinyartana la baro in ay iska ilaaliyaan ama wadaniyad iyo qiirad wadaniyadnimo la baro. boqolkiiba 75 dhalinyaro waa Soomaalida. boqolkiiba 75 taas waa cudud meel taalo. cududaas haddii sida loo baahan yahay looga faa'iideysto waxay noqon doonaan in dalka iyo dadka iyo horumarka ay ka shaqeeyaan iyagoo qaab tiknoolajiyad ahaan qaab horumarineed qaab walba oo dhalinyarada ee dalkooda ku horumari karaan ay ku horumarinayaan. bismillaah magacaygu waa Sacdiye Maxamed Nuur oo ka mid ah dhalinyarada Muqdisho gaar ahaan gobolka Banaadir.
dhalinyaro Soomaaliyeed ma dad lagu soo tarbiyay dad jecel dalkooda balse laakiin waxaan rajeynayaa in ay ka qayb qaataan nabad iyo amni intaho waxaan aaminsanahay in mustaqbalka dal waliba wuxuu ku xiran yahay dhalinyaro wadan walibana sida la sheegay waxaa hormariya dhalintiisa waana run haddii dhalinyaro wadan uusan maxaa la yidhahdaa u dhaqdhaqaaqa uusan lahaynna wadan ma ahan wadamada horu maray waxa ay teknolojiyada iyo arrimaha casriga ay ku gaareen ay tahay dhalinyaro haddaan ka soo qaadano tusaale ninka hadda Facebook sameeyay oo kale waa wiil dhalinyaro ah wuxuuna ka tirsan yahay wadan sidaa darteed marka wadankiisii uu hormariyo horumar uu gaarsiiyey oo ah in caalamka maxaa la yidhahdaa caalad laga isticmaalo uu sameeyey marka insha allah haddii ilaahay yidhahdo dhallinyaradeena Soomaaliyeedna u rajayn doonaa intaas in ka dheer insha allah haddii ilaahay yidhahdo dhallinyaradii haddana maxaa la yidhahdaa way soo kacaysaa oo maxaa la yidhahdaa kaalintoodii ay qaadanayaan waan u hambaleynayaa dhammaan dhallinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan